garaadso intaanad guursan hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha waxaanu shaacinaynaa bandhiga buugga garaadso intaanad guursan kaasoo ah wehelka lamaanaha iyo hagaha guurdoonka 8 bisha tobnaad maalinta jimcaha habeenka sabtida soo galayso waxa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan hotelka Daalo lagu soo bandhigayaa buugga garaadso intaanad guursan maadaama buuggaas yahay buug aad u weyn oo qoray qoraageeni qiimo badnaa Mubaarak Haadi aa wada garanaysaan nasiibna u leh inay gobolka Togdheer waqti la qaato waxaan ku jeclaan lahayn dhammaan dadka ehlu sharafka ehlu karamka ehlu khayrka reer Burco inay nagala soo qayb galaan runtii buugga garaadso intaanad guursan kama hadlayo kaliya guurka iyo garaadka laakiin wuxuu ka hadlayaa macno weyn oo ka sii weyn kaas oo ah hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha marka waxa halka ku dhan nuxurkii qoyska oo dhan marka lamaane iyo guurdoon labaduba way iman karaan waana wax u dana waana akhri karaan cilmi badan buugga runtii ku jira waxa ka muuqata khibrad iyo aqoon buuggan bandhigiisii koobaad wax ka soo bilaabmay dalka Turkiga gaar ahaan caasimadiisa Ankara wuxuu soo maray ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya caasimadiisa Jigjiga Boorame ayaa lagu dhigay bandhigiisii saddexaad kii afraad waxa lagu qabtay Gabiley kii shanaad waxa lagu qabtay Hargeysa kii lixaadna waxa lagu qabtay Berbera maadaama buugga lagu soo bandhigay magaalooyinka kala gedisan ee deegaanada Soomaalidu degto in wax rajeenaa in lagu soo bandhigo lagu soo dhaweeyo magaalada Burco Mubaarak Haadi oo ah qoraaga buugga waxa leenahay magaalada Burco ku soo dhaw reer Burco waxa leenahay sidii gobonimada iyo sharafta lahayd ee idinka bartay uga soo qayb gala munaasabadda bandhiga garaadso intaanad guursan ninkaas oo ka dhici doono hotel Daalo 8 bisha hadii Ilaahay ka dhigo